السلام عليكم وولاش نفسات الدون maanta waxaan fiirinaynaa hal product oo productyaasha Ombasif ka mid ah kaas oo la yiraahdo O Connect ayaa rabnaa insha Allah taala maanta inaan fiirino in si ahaanba markaad page ka soo galayso Ombasif www.ombasif.com markaad soo gasho menugaas ayaad ku dhufanaysaa halkaas ayaad ka soo dooranaysaa productiisa dooranaysaa kadibna platformka aad rabtid ayaad ka sii qaadanaysaa marka hadda O Connect 14 bari wuxuu ku siinayaa bilaash haddii aad tahay qof cusub waad ka faa'iideysan kartaa 14 bari maahan anaga almost 2 bilood iyo bar ayaan si free ku isticmaalaynaa webinaradena ku qabsanaa iyo kulamadeena adiguna waad ka faa'iideysan kartaa waa free waa video platform conferencing oo ah sida hadda Zoom baad isticmaashaa waa laga yaabaa ama maartay Google Meet ma la dhahaa I don't know a lot of platforms oo isticmaala jirta laakiin kan waxyaalaha ugu casrisan yahay ayaa rabaa inaan taabto biidnilaahi tacaala hadda wuxuu halkan ka sheekeynayaa platformka aqoontiisa maxaa leh waxyaalaha uu tarayo waxa uu yahay dhamaan aad bay u fara badan yihiin adiga akhriso maxaa la yiraahdaa virtual communication-ka waxyaalaha uu transformayo ama uu maarta bedeli doona biidnilaahi qaabkii loo wada xiriiri jiray maqalkii muuqaalka ahaa meesha ugu socda hadaba key featureska weeyaan waxa loo yaqaano ama muhiimiyadka features waxa la dhahaa waxyaalaha yaryar ee dheeriga ah oo uu leeyahay platformkan oo maanta aad platformyada kale ka helaynin waxa ugu horeeya halkaas maxaa leh prompterka waxa la yiraahdaa prompter waxa weeyaan waa page kale ama maxaa la yiraahdaa screen kale oo dadka oo ku daawanaya aad adiguna waxaaga iyo note-kaaga ku soo dhaweysan kartid oo halka computer ku wada build gareysan for example live ku jirta qofa maaragtay aad wax u sheegdada wax u sheegaysaa live ah virtual ah dadkii marka ayaga uma jeedaan waxaan adigu aad akhriis halkaan ku yaala waxa isticmaalaan fanaaniinta dadka oo musicianka ayaa xoog u isticmaala dadka youtuberadana waan ogahay inay u baahan yihiin si markay wax soo gudbinayaan note-kooda u horyaalo waxa kamid oo kaleeto audio transmission waxa kale oo mid kamid ah timer oo inaad waqti u qaban karto dadka markay hadlayaan waad aragtay bini'aadamku xoog bay u jecel yihiin oo hadalka ugu raagaan laakiin asaga 1 daqiiqo 2 daqiiqo ayaad u qabanaysaa markiiba qofkii uu ku soo biib gareynaya ama uu ka joojinaya hadalkii sidoo kaleeto resound waxa la yiraahdo inaad maaragtay cod ali codkaad rabto aad ma aragtay for example qof baa wax wanaagsan sheegay thank you oo kale codkaagana waad ku xiran kartaa boqolaal cod oo kalena way ku jiraan meesha sida harey sida maaragtay fire sida inaad maaragtay durbaan camal u tumi kadid oo kale waxaas oo dhan bini'aadan uma baahnid inay ku sacbiyaan adiga ayaa qofka u daari kara waxa ay maaragtay markaas sileedahay waa lagu amal marin karaa waxa wuxuu leeyahay oo kaleeto background macnaha special maxaa la yiraahdaa background macnaha virtual background inaad mar walba asagu ku dhex bildigareysan yahay topic maanta aad ka hadlayso wax quseeya ayaad background-kaaga saaranaysaa ama xaggan dambe markaan hadlayno waad aragtay waxbaan gadaal saaranaa oo sideen gurigeena iyo waxyaalaha iyaga loogu jeedin gadaal inoo yaala background aad u qurux badan oo u connect loo design gareeyay buu leeyahay adiguna waad ku soo dhawleed gareysan kartaa war shirkadaada iyo loogadaada hadaa doonayso inta soo gashatid ayaad saaran kartaa sidoo kaleeto wuxuu xoog u leeyahay reactions waxa la dhaho aad u qurux badan oo maaragtay love thumb up wax ali waxa rabtid ayaad qofka u saari kartaa dadka ku dhageysanaya sidoo kaleeto waxa ugu muhiimsan oo uu leeyahay wax la yiraahdo voice cancellation oo inaad codadka gurigaaga iyo waad aragtay saxmadda ilmo yaryar markaynu haysano waalidiinta oo kale hooyooyinka oo kale marka ay kasoo qayb galayaan miitinada wuxuu leeyahay background macnaha wax dadka gadaashaada familkaaga ilmahaaga iyo reerkaaga buuqaya bottom yar baa taabanaysaa kaligaa baa lagu maqlaya laakiin waxa gadaashaada ka dhacaya lama maqli karo marka voice cancellation kaasna waa amazing sidoo kale URL wuxuu leeyahay external URL macnaha hadaad for example ganacsi leedahay ama website ama YouTube kaaga aad rabto dadkan ku dhageysanaya inaad u xayeysiiso ama meel ganacsi aad leedahay linkigan sida Ombasif oo kale hadaad rabto dadku inay isticmaalaan xaggan saro kala soo saaranaysa
kadibna dadka halkaas ku dhufanayaan automatic adigoo hadlaya ayay iska diiwaan gelin karaan laakiin waxa ugu sii muhiimsan for example haddaad youtuber tahay oo kale iyo haddaad tahay qof maaragtay meel website lahoo wax ku iibiyo iyo meeshaasa soo saaran kadhaa oo opportunity-ga aad kaga faa'iidaysan kartaa sidoo kale wuxuu leeyahay dee waxyaalo aad u fara badan keliya maahan screen capture buu leeyahay oo hadda meeshan kuma qorra laakiin wuxuu leeyahay screen capture oo waxa weeyaan aad sawirka for example dad badan oo Zoom meetingka kugula jira oo connectigi hal mar umad button yar taabanaysa jarrag sawirkii buu ku qaadaya meel buu ku dhigaya screen recordingkii oo ku dhex bildi garaysan maxaa la yiraahdaa you name it wax alla iyo waxaad rabta ayaad ka helaysaa halkan su'aalaha ku yaala marka how many events ayaan ku qaban karaa oo connect iyo kala halkan jawaabta kugu sharxaya maxaa la yiraahdaa can I organize only one event at a time markaas wuxuu ku leeyahay waxaad ku organize gareyn kartaa waa kasaas kugu sheegaya sidoo kale what technology does oo connect use muxuu isticmaalayaa kadibna halkaas kugu sharaxaya waxyaalo isticmaalayo you learn more haddaad doonaysa inaad sii baratid halkaas sii taabanaysaa ood kasii baranaysaa frequency ask su'aalaha mar walba la weydiiyo oo joogtada ah waxaa kamid ah muxuu what is a webinar ku sharaxaya maxaa la yiraahdaa hadda marka halkan waa meesha aad ka baranaysa knowledge-ka ugu badan haddaad rabto productigan inaad xoog u ogaato in depth haddaad rabto inaad u ogaato halkaanaad ka baranaysaa macnaha aqoon kala ku hoos duugan oon keligii ahayn oo runtii maxaa la yiraahdaa aan asaga kaliya qusaynin xitaa oo ka baxsan ayuu ma aragtay kaaga sheekeynay sida hadda webinar muxuu yahay oo kale de keligii ma quseeyo boqolaal webinar baa jira halkaas ayaa su'aashaad rabto kanay add an alternative ma ku soo dari karaa dhammaan maxaa la yiraahdaa abtal macnaha meelo kale ma ku soo dari kara link kale ma ku isticmaali kara oo ka baxsan oo passive dhammaan waxaas oo dhan halkaas jawaabaha kaga dhargeysa marka waxaan dhihi lahaa walaalaha inay si fiican isha ugu hayaan especially dadka on passive soo galay ee raba inay platformkan ka faa'iideystaan qaab ganacsina waad uga faa'iideysan kartaa adoo saan u isticmaalaya oo platformkii miitanadaadii iyo kulamadaadii danahaagii ku qabsanaya ayaa waxaad samayn kartaa dhaqaale fiican inaad ka samayso oo qofkii isticmaalana aad commission ka samayn kardo adigana shirkadda aad dhihi karta ii suuq geeya lacag yarna aad ku subscribe garaysanaysin oo runtii aad iyo aad u yar waxaad samayn kartaa screen macnaha same screen adigoo on ka dhaqaaqin ayaad qof ku soo invite gareyn kartaa oo inta bottom yar taabatid oo qofka emailkiisa gelisay ayaa direct ugu diri kartaa meesha anagu taa linki soo qaadno meel kala tagno dadka u dirno kadeedkaas ma jiro halka bottom ayaad waxa dhan ka maamulaysa adigoo page ka dhaqaaqin sidoo kale wuxuu leeyahay invite list oo dadka ecosystemka ku jira hadda for example qof shirkadda ka tirsan tahay oo kale one button baad taabanaysaa mar qura ayaanad u wada diraysaa maxaa la one go ayaad kulanka ugu diraysaa aad qabto maxaa la yiraahdo oo mail ba ka caawinaya freega ah insha Allah taala qof walbana waa huba inuu mail haysto lagama sheekeyn karo faa'iidooyinka uu connect u leeyahay everyday use dadka qofka maalin kasta isticmaalaya ee webinarada ku qabsanaya sida especially dadka ma aragtay presentationada gudbiya wuxuu leeyahay bottom oo presentationada aad ku gudbin kartid oo waxa weeyaan click bottom yar taabanaysa oo ku soo download garaysa shaashadii adigoon ka dhaqaaqin ayaad waxa wixii aad rabtay halkan soo saarataad dadka u sharxi kadhaa sidoo kale wuxuu leeyahay push link oo aan idin soo sheegay sidoo kale wuxuu leeyahay meel aad ma aragtay YouTube-kaaga aad saari kadho macnaha sorry live aad ku xiri kadho YouTube-kaaga adiga oo dadkan la hadlaya YouTube-kana si live lagaaga daawan karo oo bottomkaasna uu leeyahay you name it adiga ayaa daalaya ma aragtay featureska uu leeyahay marka fadlan waqti sii geli halkan waxaad ku arki doontaa shirkadda maxaa la yiraahdaa meelaha ay ku leedahay xafiisyada iyo waxaas oo dhan marka waxaan jeclaystay maantay inaan idinla wadaago oo connect oo aad macnaha waxbarasho ahaan ama fahan ahaantiisa idinma tusin laakiin waxaa inii tusay kaliya in aad halkaa ka eegataan oo video conference platformkan on passive aad xoog uga faa'iideysataan insha Allah taala intaasaan kusoo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.